dadku waxay qarniyo badan raadinayeen badbaado dagaalada iyo khataraha kale ee nolosha laga soo bilaabo gaashaamadii ay samaysan jireen dagaalyahanadii hore ilaa qalabka casriga ay jirka lagu xiro dadaalka lagu doonayo ammaan ayaa marba mar ka sii dambaysa sii xoogaysanayay waxaana hore uga soo hadalnay gaariga xabadda celiya iyo jaakadda xabadda celisa muuqaalkii aan kaga hadlaynay jaakadda xabadda celisa oo gaaray ku dhawaad 1 milyan iyo bar oo daawasho ah dhanka Facebooka ayaa dadka qaybtood ku falceliyeen sidan commentiskan oo ay ku leeyihiin madaxa ka fudud ama madaxa ma looga dhufto xabadda waa runo jaakadda bulletproof-ka ahi waxay wax ka celisaa qaybta dhexe ee jirka oo kaliya madaxa oo si fudud looga dhiman karana ayaa ka dhow laakiin muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa bulletproof-ka loogu talagalay in madaxa xabadda ay ka celiso taasoo ah face mask bulletproof oo haddii aad isku xirato face mask bulletproof iyo jacket bulletproof ay u badan tahay inaad ka badbaadaysid weerarada gaadmada ah ama dagaalada foolka ah maadaama ay ku gaashaaman yihiin meelaha qofku si fudud uga dhiman karo ilaahay baa dhimashada haye fikirka ah in la helo difaac madaxa ah waxa uu dib ugu laabanayaa waqtiyadii dagaalyahanadii qarnigii dhexe kuwaasoo adeegsan jiray gaashaamo bir ah si ay isaga difaacaan fallaaraha iyo seefaha laakiin waqtigaasi xabad ma jirin oo kaliya wuxuu celin jiray seefaha iyo fallaaraha laakiin markuu hubku sii casriyoobay baahida loo qabo difaac horumarsan oo celin kara xabadaha ayaa sare u kacday markii la soo gaaray qarnigii 21aad booliiska ciidamada iyo shirkadaha amniga gaarka ah waxay adeegsan jireen farsamooyin cusub oo face mask bulletproof ah face maskiga xabadda celiya waxa laga sameeyaa agab xoog badan sida Kevlar ultra high molecular weight polyethylene iyo ceramic plating lakabyadan waxa ay nuugaan tamarta xabadda iyagoo ka hortagaya inay jabiso face maskiga ama gasho gudaha face maskiga bulletproof-ka waxay leeyihiin nooc kala duwan oo isku qaab ma ahan waxaa jira mid daboolaya wajiga ilaa wajahada hore ee madaxa oo aan daboolayn qaybta dambe ee madaxa iyo qaybta sare ee madaxa sidoo kale waxaa jira mid daboolaya madaxa iyo wajiga oo wata koofiyad iyadoona bulletproof ah badanaa koofiyadaha bulletproof-ka iyagana si gooniya ayaa loo sameeyaa koofiyadaha iyo face maskiga bulletproof-ka waxay leeyihiin heerar xabad celina oo kala duwan marka loo eego National Institute of Justice oo ah maxad cilmi baaris oo cabira heerarka wax kasta oo bulletproof ah ama xabad celiya level 2 wuxuu celin karaa xabadaha yaryar ee bistooladaha level 3 wuxuu celin karaa xabadaha qoryaha sida AK47 level 4 waa heerka ugu sareeya wuxuuna celin karaa xabadaha hubka culus ee ciidamadu isticmaalaan bulletproof-ku ma ahan oo kaliya difaac waxa loo isticmaalaa xaaladaha halista ah sida xakamaynta mudaharaadyada howlgallada la dagaalanka argagixisada iyo dagaalada foolka waxay qofka siinayaan kalsooni iyo fursad uga badbaadi karo dhimasho iyadoo khataraha casrigan ay sii kordhiyaan tiknoolajiyada bulletproof-kuna way sii horumaraysaa aan ku xasuusiyo indhaha qofku waa ay bannaan yihiin maadaama ay adag tahay in la toogto laakiin shiishyahan dhaafay ayaa toogan kara